السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel kasto caalamka ka joogtaan aad iyo aad baa idin salaamaya salaan kadib maanta waxaa lahaa waxaan balan lahaa dhakhtarkayga ilkaha marka waxaan jeclaystay inaan video idinkaga soo sameeyo aydan la soo shargareeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin already hadda waa imaaday dhakhtarkayga ilkaha wuxuu ku yaalaa townka magaalada Kampala haddaa u baahan tahay inaad tagtid waa imaan kartaa waa dhakhtar aad iyo aad u fiican run ahaantii haddana gudaha u gali doonaa inkastoo maanta waqtigayga ka soo dib dhacay waqtigii balanta lahaa haddana dhib ma lahan ilaahay waxaa ka bari doonaa in meesha cidlaha tago sababtoo aniga ma jeceli jaamka waqtigayga inuu iga lumo marabo saas darteeda ayaa markasta xilli hore u imaadaa hadda waa imaaday boorka waa idinkugu aadinayaa waa kaas Balma Dental Clinic la dhahaa haddaa u baahan tahay waa imaan kartaa gacmo furan lagu soo dhaweyn doonaa dhakhtar fiican oo masha Allah si fiican kugu habeenayo ilkahaagana uu jooga hadda meesha xafiiska imaaday koodii hore magacaagina meesha ku qortid waay lambarkaaga maalin walba saas camalina isku diiwaan gelisid waay markaa imaadid kadibna banaanka iska soo fariisanay maadaama dhakhtarka uu mashquul ahaa oo yani qof wax u habeenayo kadibna hoosheyda ayaa la ii bilaabay saa u jeedaan kawaanka ayaa la ii seexiyay waa naxsanahay waa khalkhalooya waxaa taaganahay yaa Rasaaq ya Fataax ilaahu ifura taaganahay ma fahanteen kadib dhakhtarkan waa ii dhadhaaranayaa wuxuu leeyahay bas waayadi markan xanuun anigana waa khaylinaya waxaa taaganahay yaasaan mu maleeynin inaysan igu dhacayso mu maleeynin inaa taaganahay sida aragtaan wili hoosheyda waa lagu guda jiraa dhakhtarka wuxuu taagay maxaa waay fulaynimada intaan leeg anigana waxaa taaganahay waxaan u dhalasho waay dhakhtar iskiyeel maahane hawshaada cabaa taaganahay kadibna waxaa la ii soo bixiyay laastiga waxaa lagu dhahay kalar dooqo kadib waaba ku wareerabo waxaa dhahay ma aqaan waxa dooqdo markii dambe balaaga iska dooqday iga taaganahay marba hadii la ii dhamay alxamdulillah dhakhtarkina wuxuu leeyahay walaalay fuleynimadaada meesha ha igu oonini xaafadda leh markaa tagtid toos ooy kadib gabadha walaasheeda ayadana jakinaalkeeda lagu sameynayay hadda markii abaayo loo dhameeyo waa baxeynaa waxaa aadaynaa maqaayad oo ku taalo Kisenyi Business Center dadka Uganda jooga aad u yaqaanaan hadda waa soo baxnay banaanka soo istaagnay wadada taaganahna waxaa raadinaynaa boodho ama mooto saa u taqaanaan ninkaas xulay kaalay tan soo raac waxaa leenaa maya bootaadu way egtahay kadib boodhaa soo helnay waa soo baxnay Kisenyi Business Center imaanay maqaayadan bariis macaan la dhahaa maasha Allah markaa imaanay waxaa la wax karsan ma lahan suga kadib waxaa dhaana qaxwo noo keena qaxwii baaquli sukarana loo keenay waa isku qaboojinaa ku dhahay kadibna jikinkii briiskiana loo keenay basbaaskiisa waxaa ku dhahay maasha Allah wax ka macaan ma laha ku dhahay khatarzaana waay kadibna hadee cuntadeena feeraha saarsanay kadibna sidaana ka dhignay saxanka ashaadu ku waasha laa ilaaha illa Allah war islaan mitiin miya war macaasa igu galaysa anagana waxaa taaganay war sugsug lacag baa nooga kaa baxday kadibna xilliga lacagta la bixinayo la gaaray waa dhamaysanay lacagteena iska soo dhiibnay alxamdulillah haddana anagoo nabad qabno ilaahayna soo nabad celiyay boodhadeena soo raacnay kadibna xaafadeena usoo soconaa sida arkaysaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan aad daawatay hadduu ku cajab geliyay waa ku mahadsan tahay like iyo subscribe ka arko hadduu ku cajab gelinin aad ka helina aad iyo aad baan uga xumahay waxaan ku leeyahay waa kaara la gelinayaa salaamu calaykum